أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله رب العرش العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalaha khayrka jecel, walaalaha nala jooga iyo walaalaha nagu cusubba, jasaakumullah khayr ayaan idin leeyahay. Walaalaha muraadka iyo umuuraha ka cakiran yihiin, ilaahay u sahlo umuurahooda oo aan lahayn wax macsi ah. Inta xanuunsan allaha noo caafiyo, inta xabsiyada ku jirta allaha ka soo deeyo, inta guuraadisa guur xalaal allaha siiyo, gabdho iyo wiilalba. Inta awlaada ka xanuunsan yihiin allaha u caafiyo, inta muraadka adduun iyo culeysada u haystana culeysada allaha ka dulqaado dhammaanteenaba aamiin yaa rabbi. walaalaha qaaliga ahow, man yuridillahu khayran yufaqihu fidiin. ilaahay khayr qofkuu la doona diinta iyo wanaajiyaa uu fahansiiyaa. marka ilaahay fahmada diinta iyo khayrka anoo furo yaa rabbi aamiin. sidaa ciwaanka kasoo aragteen, qisaskeena ayaan ka hadli doonaa, istighfaarta ku saabsanaay. meeshan qisadan waxaa sheegaya waa wiil, waxa uu leeyahay waxaan ahaa wiil dhalinyaro ah. dhalinyaarnimadeydii wuxuu yiri kama faa'iideysanin, balse waxaan uga faa'iideystay uu dhahay waqtigeygii. dhanka xumaa ayaan ku beel dareen jiray, waan cabi jiray sigaarka, waan cuni jiray jaadka, wax kasta oo xun, xashiishka ayaa cuni jiray. wuxuu kaloo dhahay salaada ma tukan jirin, muusikada ayaan dhageysan jiray. wuxuu dhahay waxaas isaga socotay nolosheyda oo sidaas iskala qabsatay ayaa maalin maalmaha ka mid ah annagoo iska sheekeysanayna ayaa sheekadii waxay nala tiimbatay oo dhahay, oo yacni sheekadii lagu soo dhexdaray naag oo garoob ahayd. naagtaasoo ilaahay istighfaarta faraj ugu furay, oo ninkeedii ka dhintay, reerkeediina wax mucaawino iyo kaalmo ay ka weysay. marka aan ka sheekeysanay sida ilaahay ugu caawiyay istighfaarta, wuxuu dhahay quluubteyda way soo jilicday. waxaan bilaabay uu dhahay inaan khayrka jeclaado, oo aan jeclaado bal inaan tijaabiyo istighfaartaas. wuxuu dhahay istighfaartaasaan bilaabay. wuxuu dhahay maalmaha qaar waa iska dhihi jiray, maalin waan iska dhaafi jiray. sidaas u ahay marka dambeento oo tartiib tartiib u waday. ilaahay ayaa wuxuu dhahay qalbigeyga jilciye oo istighfaarta jidkeedii aba afka saaray. uu dhahay afka markaan saaray alxamdulillah, wuxuu dhahay xumaantii si tartiib tartiib ayaa uga go'ay. markaan waday muddo 6 bilood ah, oo 6daas biloodba kolba xumaan aan lugta ka reebanayay. maalin jaadka aan iska dhaafo, sigaarka aan iska dhaafo, salaadii aan soo noqdo, xashiishka aan iska dayo, dunuubtii maxaa la dhahaye dhicii, khiyaanadii, waxyaabihii aan dheelayay, khamaarkii iyo wixii dhan. wuxuu dhahay si tartiib tartiib ayay iga soo go'een. alxamdulillah hadda 6 bilood kadib wuxuu dhahay ninkan hadda waxaan ahay qisada idinla soo wadaagayo, nolosheedana way ii toostay alxamdulillah. istighfaarta ayaan ugu sabab ahayd. marka kadib marka arkuu dhahay qisada laga sheegay istighfaarta oo naagtaasi armalada ama garoobta ah ilaahay uu farajka ugu furo markaa arkay, ayaa anigan ilaahay quluubtayda soo jilciyay oo aan istighfaarta bilaabay ayuu leeyahay. wuxuu ku daray qisadiisa in uu ahay arday dhigto jaamacadda oo isaga haray kadib markii uu fasahaaday. intii uu yaraa oo dhalinyarada ahay oo dugsiga sare iyo dhigan jiray, waalidkiisa ayaa ku qasbi jiray, balse markii uu nin weyn noqday, jaamici noqdayna wuu iska dhaafay oo xorriyadiisa ayuu qaatay. hadda wuxuu leeyahay waxaan kusoo noqday jaamacadeydii dhanna waxay noqotay ayuu dhahay farxad, reereen iyo irdaha khayrka oo dhan inay ii furmeen. culayska iyo deeqi aan qalbiga ka dareemayna ilaahay uu iga dulqaaday ayuu dhahay. marka wuxuu leeyahay istighfaarta daa'ima oo gacanta midig ku qaata. waxaa ka sheekeynayso gabar waxa ay leedahay dhab ahaantii rabbigeena waa naxariis badano. da'deydu waxay ahayd 24 sano. da'daas ayaana ku guursaday ayay dhahday. dadkii ugu horreeyay guurkeyga dhexdiisa waxaa igu dhacay xanuun. waxay dhahday marka waxaa igu dhacay xanuun la yaab leh. xanuunkaasoo ahay maskaxda biyaha ku furmaayay oo kor u kacaya, biyo badan maskaxda iga furmaayeen. aad ayaan u xanuunsan jiray ayay dhahday. madax xanuun aad u daran ayaan dareemi jiray. xanuunka intuu ugu faafo ilaa garbaha ayuu iga gaari jiray, waxna ma qabsan karin ayay dhahday. oo xanuunkaas waxaan ku socon jiray kaniiniyaal kaliyax ah. kulka biyaha ee maskaxda marka uu sare u kacana waxay dhahday indhaha ayuu gaari jiray. indhaha markuu gaarane aragtideeda way sii daciifi jirtay. waxaan sidaas ahaadaba muddo 6 bilood ah aan daawo qaato. waxay dhahday markii dambe waxaa la igu sameeyay qaliinkaas laguma guuleysanin ayay dhahday.
waxaa kaloo haddana liigu sameeyey qaliin kaleento, qaliinkaas kale laguma guuleysanin ayay dhahday. daawooyinkii iyo suntii jirkeyga gashay aaweeda wax uurana ma qaadi karin ayay leedahay. alxamdulilah waxay dhahday markii dambeenta waxaan bilaabay istikfaarta. muddo markaa istikfaarsanaya haddana waxay dhahday qaliin saddexaad ayaa liigu celiyey. qaliinkaygii saddexaad aada looguma guuleysanin, laakiin in yar waa un yacni wow yaro dhaama ayay dhahday. alxamdulilah kadib waxay dhahday muddo bil markaan joogay qaliinkayga saddexaad, muddo bila laga joogay, waxaan dareemay ayay dhahday inaan yacni xanuunsanahay oo cajisanahay. baaritaano iyo wax markii liigu sameeyeyna waxay dhahday waxaa la ogaaday in aan uur leeyahay. ilaahay waa naxariis badane. waxaa laygu dhahday wax uur ma qaadi kartid maadaama ay daawooyinkan ku sameeyeen, balse alxamdulilah ilaahay waxuu igu arsaaqay owlaad. caafimaadkeyga in yar oo kamidana waa igu soo noqotay. haddana waxay dhahday istikfaarta afka kama qaado, subax iyo maalin iyo alleyl xilli kasto ay tahay. ilaahayna waa naxariis badana ayay ku celcelisay gabadhaasi. tiri dadka isweydiin doona inta aan akhrinayay istikfaarta waxay dhahday ugu yaraan 10 kun ayaan akhrin jiray ayay dhahday maalintii, marka qaarna waan ka badan jiray ayay dhahday xasba xaalati firaaqada sida uu helayo iyo xaaladeeda sida ay tahay ay ku xirneed ayay dhahday. marka 10 kun in ka badan ayay u tasbiixsan jirtay oo ilaahay istikfaar weydiisan jirtay. sidaan waxa ay ka sheekeynay waa wiil waxa uu leeyahay maalin maalmaha kamid ah nafteyda waxaan kula sharatamay in aan akhriyo 8 kun oo istikfaar ah. maalintaasi wuxuu dhahay arrimo ayaa iga adkaay oo culays ayaan dareemayay, maba dhameynin uu dhahay maalinta haafkeeda ma uusan dhamaanin. ilaahay arinteydii iyo umuurihii iyo culayskii i haystay ayuu ii furfuray oo ii fududeeyey oo meel dhow iga siiyey, mana filanaynin ayuu dhahay inaan isla maalintaas gudaheeda ku heli doono arinteyda. ilaahay ayaa nasahan oo xumaan oo dhan ka nasahana. wuxuu dhahay waxaan u aaminay istikfaarta si qalbiyan ah oo hadda wuxuu dhahay gacanteyda midig ayaan ku haystaa, macnaha aad ayaan ugu dhagayo ka wada istikfaarta. subxaanallah ilaahay ayaa nasahan ayuu dhahay wiilkaasi. bal ka waran sida uu ilaahay u naxariis badan yahay. hal maalin gudaheeda ayuu ku siiyey arrimihiisa culayska kaysta muddada dhan. keliya hal mar oo usoo noqday oo usoo fadhiistay oo usoo toobad keenay ayuu ilaahay arrimihiisa oo dhan ugu fududeeyey. ilaahay keliya wuxuu leeyahay adcuuni astajib lakum, ibarya waan idin ajiibaya. ilaahay haddaan usoo noqono oo toobad keeno waa kiina ajiibo. qisada tani waxaa ka sheekeynaysa waa gabar waxa ay leedahay waxaan ahay qof aad u murugaysan oo nolosha farxadeeda dhan ay ka zooshay. culays wax kasta oo aan hamiyana waxay dhihi jirtay waxay dhahday wuu iga xarimay ama ma helaynin sheyga aan hamiyo. shaqo haddaan dalbado shaqadaasi ma helaynin oo ima suurtagelaynin. haddaan wax kasta oo nolosha kamida farta aan qaadabo xayiraad ayay iga saarneed. waxaa kaloo intaas kasii darneed ayay dhahday da-deyda waxa waaye 34 jir, hase ahaatee weli ma guursanin ayay dhahday oo nin kastoo isoo doonto wuusa iga noqonaya ayay dhahday. markuu guurkeena soo dhawaadabo wuu iga noqonaya. nolosheedu waxa culayskaas saarnaado oon fikiro oo maxaa sidaan lagu yeelaaba aan ka fikiro, dhagxumada dadkana aan u dulqaato. markii dambe ilaahay waxa uu haleeshiisiiyey ayay dhahday inaan akhriyo istikfaarta. habeenkina salaatuleyl iyo ducadii oo aan badiyey waxay dhahday istikfaarta waxaan akhrin jiray 15 kun 16 kun ilaa 20 kun ayaan yacni aniga qorsheyga ah inaan gaarsiiyo. maalmaha qaar waan ka hoos baran jiray ay dhahday, marmarka qaarna inaan ka sara maramo inteeda la ekeysiyaa la arkaayo. waxay aan wada ayay dhahday istikfaarta aan joogtay muddo 4 bilood markaan waday. waxay dhahday waxaaba bilaabmatay in la isoo doonto oo doonimaadkeyga u dhaco oo rag fara badan gurigeen ay soo garaacaan ay dhahaan gabadhaas ayaa rabnay, gabadhaan ma joogi jirtay. oo waxayba dhahday wax kasta oo adduunyada culays iga saarnaa oo ii furfurmo muddo 4 bilood gudaheeda. alxamdulilah hadda waxay dhahday guurkeyga ayaa la qaban qaabinayaa. ilaahayna wuxuu faraj iigu furay istikfaarta. istikfaarta waxay leedahay ilaahay waa naxariis badan. istikfaarta aan badino anaga iyo adinka iyo ayadaba nafteena iyo naf walba waxay kula dardaarmaysaa in istikfaarta aan badino. subxaanahu watacaala wuxuuna leeyahay faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana qafaara yursil samaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniina wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara. marka istikfaarta
faa'iidadeeda iyo fadligeeda maba aha wax la soo koobi karo. Qisaskeena maantana intaas ayay ku egyihiin. Nafteedii naftiinaba waxaan kula dardaarmayaa khayrka ilaahay iyo alla ka cabsiga. ilaahay waxaan ka baryayaa gafkeena iyo geerideena inuu Allah subxaanahu wa tacaala u kulminin. Kelimada ugu dambeysa afkeena ay noqoto kelimada laa ilaaha illa allah muxammadur rasuulullah. ilaahay waxaan ka baryaynaa khaatimada inuu khayr nooga dhigo biidni raxmaan. ilaahay waxaan ka baryaynaa asaga quluubta gadgadiye inuu quluubteena khayrka ku xasiliyo. allahumma yaa muqallibal quluub thabbit quluubana calaa diinik. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهي وربي ورحمن كان النار ككوري والنار أدون إبد آخر إله النجاها يا ربي يا رحمن. إله والد كان ونحرسه سيدا أنا ويرنا ونحرستين وكلنتو. إله أولاد باريال نوغرك انت هي سنين أولاد باريين صالحين عافين السي يا ربي يا رحمن. إلهي نمعوينك ونسيي الله نوتام يلو nimcooyinku ilaahay na siiyo ma kuwa la soo koobi kara. caafimaadka ayaa kamid lixaadkaaga hadaa haysatid, caqligaaga hadaa haysatid meel aad ku hoyato. nimcooyin fara badan oo la soo koobi kara ayuu ilaahay na siiyey. neefta aan neefsanayno waa nimcada ugu weyn oo ilaahay uu na siiyey. sababtoo ah daqiiqada qaar waxaa laga yaabaa dad inay lacag ku jiifaan oo lacag ay ku neefsanayaan. alxamdulillaah ayaan leenahay mar kastanto. alxamdulilaahi daa'iman wa abadaa. ilaahay ayaa mahadoo dhan u sugnaatay. ilaahay waa naxariis badan, asxaan badan, kariim ah. kaafiyo adoomadiisa ku filan. ilaahay hana kaafiyo oo hanaga kaafiyo bini aadan kaleento gacantiisa wax nooga xiran biidni raxmaan. kaliya waxaa u baahannahay inaan ilaahay ugu soo noqono qalbi nadiif ah oo aan shirki iyo shariignimo ku jirin iyo daacadnimo. ikhlaas inaa alla u khilaasiyo. lama rabo marna inaa ilaahay u tasbiixsatid oo astighfaarta aad daldashid, marna muusigada aad dhageysatid, marna aa xantantid, marna aa caytantid. ma la rabo. marka aad rabto qof mu'min oo daacad ah inaa noqoto waaye. markaa rabto ilaahay inuu aqbalo ducooyinkaaga, koo waa inaa adiga niyadaada ku wanaagsan tahay, aad tahay qof asaga nadiif ah oo aan dadka caynin, dadka xantamin, dadka aan dhibaateynin waa inaa noqotaa. markaas ayuu ilaahay ducadaada aqbalayaa. qabyaalada iyo xumaanta iyo xanta iyo cayda iyo jaa'ifadan insha Allah iska deyno. dhagaheenana aan ugu raaxeyno waxyaabaha khayrka la meelaha khayrka laga sheegayna aan ka dhawaana markasteento si quluubteena u jilacdo oo khayrka iyo diinta ugu jilca biidni raxmaan. naftiinaba waxaan ku waarinayaa cabsida ilaahay. ilaahayna hanaga dhigo mustakfiriinta kuwa ilaahay u toobadkeena mar walbeento. ilaahay waxaan ka baryaynaa dembigeena kii hore iyo kii dambe, mid yar iyo mid weyn, mida ognaay mida ogeenba inuu ilaahay naga toobad aqbalo oo noo dambi dhaaf ayaa ilaahay weydiisanayna. asagaa qafuur raxiim ah, shadiidul ciqaaba. ilaahay arlada ayaan ka duceynay, samada laga aqbalaa. oo aamiinteeni aamiinta malaa'igta yaa rabbi yaa raxmaan kulmi. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. insha Allah inaa usii sheergaraysa ayaa rajeynaa walaalaha kaleento. like-tana aa videoga saartay insha Allah subscribe-kana ku xiro si aa u noqoto qofka ugu horeeyo. fi amaanillaah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.